maqalkooda iyo wa absaarihim aragyadooda ilaahay waa la tegi lahaa hillaacaas ku bixin lahaa ilaahay hadduu rabo subxaanahu watacaala hillaacaasuu kusii xoojin lahaa markaasuu aragga iyo maqalkaba uga qaadi lahaa gugacna maqalka uga qaadi lahaa aragyadana hillaacaasuu uga qaadi lahaa ina allaha ilaahay calaa kulli shayin shay kasta qadiirun qaadirun kii awooda weeyaan haddaba ilaahay subxaanahu watacaala munaafiqiinta tilmaamo badan buu noogu soo sheegay halkaa waxaa ku eg munaafiqiinta tilmaamahoodii aan soo haynay 10 tilmaamood baa lagu soo sheegay oo mid walba midda kale ay kasii foorxun tahay waxaa lagu tilmaamay been sheegid oo iimaan ay sheeganayaan ay ku been sheegayaan dhagax makrifal caqlinaaqusnimo istihziya jees xad ay ku jeejeesayaan fasahaadin arlada ay fasahaadinayaan jahli iyo dalaal mudadadnimo iyo ay gaalada iyo islaamka dhexdooda ku noqnoqonayaan balana ka mid ahayn oo hadda walba gaalnimadana ay uurka kala jiraan oo gaalada uurka ay kaga mid yihiin mu'miniintana daahirka ay kala mid dhigahayaan waa mudadadnimada weeyaan sufri iyo jees dadka mu'miniinta ay ku jeejeesayeen 10kaas tilmaamood ayaa lagu soo sheegay haddaba dadkaas munaafiqiinta ah oo tilmaamahooda naloo soo sheegay dabtii gaalada ka mid ahaayeen aakharana qofkaan ka toobad keenin gaalada naarta lagu waarinayo ayay ka mid noqonayaan haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam asagoo yaqaana tilmaamahooda ku yaqaana cayntooda iyo qof ahaansadooda yaqaana ma uu leynaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam way la joogeen way la tukanayeen sirtiisay qaadayeen gaaladay u geynhayeen haddana waxa weeyaan waxa ugu kaaftoonhayay canaantaas iyo qur-aanka kashifidiisa ceebahooda uu kashifahayo iyo tilmaamaha laga bixinhayo ayaa looga kaaftoonayo nebigu ma uu leynaynin calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyey in sayid cumar maalin arrin ay dhacday oo munaafiqiinta u sabab ahaayeen in uu ka codsaday in madaxa laga jaro markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan nacahayaa inay carabtu ku sheekaystaan muxamed wuxuu leynhayaa asxaabtiisuu leynhaya haddaba kolkaan dib u jalleecno macaanida halkaas ibnuqayim wuxuu yidhi kolkaad fiirfiiriso ilaahay qowlkiisa dahaba allahu binuurihim oosan oranin dahaba allahu binaarihim naartooda buu la tegi oranin ayada oo siyaaqa uu taakeenaynaa istawqada naaran horay loo soo yidhi naarta waxay leedahay iftiin iyo gubashay leedahay ilaahay marka ayadoos ka qaaday baa loo wadaa xaggii iftiinkii ee nuurka ahaa oo u baaqi yeelay gubashadii naarnimada ahayd dhan kale kolkaad ka fiiriso nuurka waa la kala yeelay oo ilaahay subxaanahu watacaala markii nuurka uu ka hadlahayey keli ahaan buu u sheegay mugdiyadan kolkuu ka hadlahayey wuu jamciyey xaq buu nuurku masalahaya xaq buu mid kaliya weeyaan jidka ilaahay mustaqiimka weeyaan oo ilaahay ridihiisa iyo jannadiisaba gaarsiinhaya ama mugdiga ama baatilku waxa weeyaan jidadkiisu way fara badan tahay sidaasaa markaa dulumaadkan loo jamciyey oo aayaad badan baa sidaas ilaahay ku sheegay yukhrijuunahum min adulumaati ila nuur baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala waxay ka saarahayaan mugdiyada ila nuuri bay u saarahayaan wajacala adulumaati wannuur ilaahay wuxuu yeelay dulumaadka iyo nuurka wa ana haadaa siraatii mustaqiiman kan waa jidkaygii oo toosan fattabicuuhu raaca walaa tattabicu subula jidadka kale ha raacina fatafaraqa bikum can sabiilihi jidkii ilaahay idinkala weecato haddaba subushii baadilka ama jidadkii baadilka waa la jamciyey jidka xaqana waa la mideeyey taa waxay tusinaysaa xaqa midnimadiisa iyo baadilka farabadnaantiisa iyo wejiyadiisa kala dugnaanteeda ayay tusaalaynaysaa haddaba munaafiqiinta saan soo sheegnay nabiga calayhi salaatu wasalaam hijradiisii bacdigeedooday bilowdeen zaman walba iyo ummad kastana way dhex joogaan markii dadka meesha jooga ay baraarugsanaantooda ay weyn tahay digtoonadoodu ay dheeraan tahay oo marka aan la makanaynin fasaadkooda inay fuliyaan ayagoo joogabay yar qarsoonaanhayaan fasaadkoodana waa yaraanhayaan markii loo baraarugsanaan waayo oo markaas muxuu ahaa digtoono weyn laga qaadan waayo oo fursad ay helaanna waxay ku beerahayaan dhulka fasaad bay ku beerahayaan dadkii bay tafaruq iyo qaybo iyo mashaakil ku kala ridahayaan fasaadka noocyadiisa oo dhan bay markaa dhulkii ku fidinhayaan zaman walbana way joogaan waxa weeyaan dadka ilaahay ku
tilmaamay munaafiqiin inay yihiin gaaladana ay ka xun yihiin maalinta qiyaamana naarta meesha ugu hoosaysa ee salkeeda ay ahaanayaan. casharkeena maanta intaasuu ku ogyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah. casharkeena maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 21 ee suuratulbaqara ka mid ah. ilaahay markuu noo soo sheegay 3 qaybood ee mu'miniintii iyo kaafiriintii iyo munaafiqiintii oo mid walba tilmaamaha uu ku soomahayo naloogu soo caddeeyey, halkan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa aayado tusinhaya qudradiisa iyo midnimadiisa iyo fadligiisa iyo nicmayntiisa. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, yaa ayuhannaasu dadkaanu ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiina caabuda alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka horreeyey lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad cabsataan. ilaahay dadkii oo dhan buu guud ahaan u dhawaaqaya. haddaad naada aragto qur'aanka dhexdiisa dadka loo dhawaaqayo ama mu'miniinta gaar ahaan loo dhawaaqayo yaa xarafkaas lagu bilaabanhayo, waxaa weeyaan arrin weyn baa laisfarhayaa ama arrin weyn baa laiska reebahayaa, arrin oo mudan in loo dhaqaado oosan kugu gudbin halmaansanaan ayaa meesha ku jira. sidaasaa marka ilaahay dadkii guud ahaan ugu dhawaaqahaya, wuxuuna amraya arrin weyn oyna ka maarmin buu farhaya. ilaahay wuxuu leeyahay dadkaanu ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiina caabuda. rabbigiina dadkaanu caabuda waxa weeyaan bani aadamkii oo dhan baa loo dhawaaqahaya. wa rabbigiinii idin rabbeeyey oo idin amaamuday oo qudradiisa idinku haysiiyey adinku oon waxba ahayn. rabbigaa caabuda oo midayntiisii u shukrintiisii iyo daacadiisa ku caabuda. rabbigaa waa kan idin abuuray weeyaan baa ilaah leeyahay, alladii khalaqakum idin abuuray. asaga iskeen aqoonsiinhayo oo wuxuu isku keen aqoonsiinhaya khaaliqnimadiisa. alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka horreeyey. rabbigaa caabuda laidin leeyahay kan idin haysiiyey oo eber idinka haysiiyey weeyaan. ummadihii idinka horreeyey iyo aabaadiiniina haysiiyo abuuray. lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna inaad cabsataan oo muttaqiinta faa'iidiinta ah ee liibaanahaya aad ka mid ahaataan. alladii rabbigaasoo jacala yeelay lakum idinka al-arda dhulka firaashan gogol idinka yeelay, waassamaa'a cirkana binaa'an dhis oo saanqaafa idinka yeelay, wa anzala dejiyey min assamaa'i xagga sare ee cirkiya daruuraha xaggooda maa'an biyo idinka dejiyey oo fa akhraja ku soo bixiyey bihi bisababilmaa'i maagaas biyahaas sababtood min asamaraati min anwaaci asamaraati mirayaalka noocyadooda idinku soo bixiyey risqan risqisiin lakum idinka idin risqisiinhayo iyo xoolihiinaba. ilaahay wuxuu leeyahay rabbiga caabuda laidin leeyahay waa kan dhulka idinka dhigay gogol. dhulkiibu gogol idinka dhigay, gogol oo kaleeto oo aad ku sugnaanaysaan, ku rogrogmanaysaan, aad guryo ka samaysanaysaan, beero ka samaysanaysaan, khayr kala soo baxaysaan. wixi aad rabtaanba ilaahay baa idin diyaariyo waa idin leelisan yahayo waad ku sugnaanaysaan oo noloshiinii baad ka helaysaan. wax walbaa ilaahay idinku diyaariyey subxaanahu wa tacaala. marka gogol ood ku rogrogmayso saad rabta ugu dhaqanayso oo kale yaa ilaahay dhulka idinka dhigay. cirkiina sabfi oo kaleu idinka dhigay, sabfi sare oo haraynhaya, dhulkii haraynhaya. sidaasoo kaleetaa ilaah idinka dhigay. cirkiina wuxuu idinka soo dejiyey biyo macaan oo roob ah yuu idinka soo dejiyo xagga daruuraha yuu idinka keenay biyahaas. markaasuu biyahaas ilaahay idinku soo saaray mirayaal kala duwan iyo fawaakih iyo khudrawaad oo adinku risqi idiin ah, adinka xoolihiinna iyo adinkaba. marka sidaa hadday tahay ilaahay cibaadada ku gooni yeela oo falaa tajcaluu ha yeelina lilaahi ilaahay andaadan waxyaalo aad la simaysaan ha u yeelina. wa antum xaal taclamuuna aad og tihiinoo inaan kuwaas ayagoo ilaahay aad la simaysaan waxba inayna abuurin, waxba ayna irsaaqaynin. ilaahay inuu yahay ka abuuridda leh, ka irsaaqidda leh, kan xoogga leh inuu yahay aad og tihiin. ibnu kasiir wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala
markaasuu caddeeyey oo waxdaanimadiisa markuu caddeeyey biannahu huwa almuncimu inuu yahay ku muncim ah oo nicmaynhaya oo addoomankii u nicmaynhaya soo bixinta uu ka soo bixiyey cadamnimada ebernimada iyo nicamtiisa uu ku sibqay sidaasaa marka ilaahay noo caddeeyey muraadka samada looga muraadahayana daruuraha weeyaan fahuwa tacaala alladii anzala almatara min asaxaab ilaahay waa kan roobka daruuraha ka soo dejiyey waqti ay baahi dadku u qabaan oo marka ugu soo saarhaya beeraha noocyadooda kala duwan kuwa geedmuroodyada ah hadday tahay kuwa kaleetoo xubuubta hadday tahay xagga qudrawaadka hadday tahay wixii xooluhu ku noolaan lahayeen hadday tahay wixii ayagu ay cunahayeen hadday tahay waxaasoo dhan ba ilaahay subxaanahu watacaala roobkii inuu ku soo saarhaya marka rabbiga saa idinku nicmaynhaya inaad wax kale la wadaajisaan ma mudne cibaadada keligii baa mudane keligii caabuda oo wax lafaca ha u yeelina adinkoo og waxa lafaca ah inayna adinka idin abuurin idinna irsaaqaynin wain kuntum haddii aad tihiin fii raybin shaki mimaa nazalnaa kan aan soo dejinay xaggii aad shakinaysaan calaa cabdinaa addoonkayaga muxameda sala allahu caleyh wasalam aan ku soo dejinay aad shakinaysaan qur'aanka weeye fa'tuu la imaada bal bisuuratin suurad la imaada min mislihi qur'aanka oo kale ah wadcuu u yeerta shuhadaa'akum wixii idin xaadir ah iyo wax kaleba waxaad heli kartaan oo idin kaalmaynayo min duuniillaahi ilaahay sukadiisa in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay markii ilaahay midnimadiisa iyo khaaliqnimadiisa naloo soo sheegay ayaa haddana laga dambaysiina la raacsiinhayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa xaqnimadeeda ayadoo lagu muujinhayo qur'aanka ilaahay uu ku soo dejiyey ee mucjisada u ah ayadoo taas lagu muujinhayo markaasaa ilaahay leeyihi wardadow haddaad shakisan tihiin kan qur'aanka ah oon ku soo dejinay addoonkayaga ilaahay wuxuu ku magacaabahayaa nebiga addoonkiisa darajo qofku uu gaaro midda u sarraysaa inuu addoon alle noqdo weeyaan inuu alle u go-a weeyaan markaasuu wax walba oo ilaahay ka soo haray ka xoroobahaya marka sidaas daraaddeed meelaha sharafta leh oo qur-aanka soo dejintiisa saamaysa ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku magacaabahayaa addoonkiisa addoonkayaga kaan ku soo dejinay haddaad shakinaysaan bal la imaada ilaahay leeyi hal suura la imaado oo qur'aanka oo kaleeta ah hal suuro oo qur'aanka oo kale ah bal la imaada u wacda suuraddaas la imaashadeeda oo adinku aad iska abuuranaysaan ilaa iyagaa odhanhayeen qur'aanka iyagoo ku durhaya asagaa la yimid waa shicir waa gabay waa kaano wax asaga uu samaystay bay ka dhigahayeen adinkuba carab baad tihiine fasaaxaddii carabtaad leedihiine bal hadduu asagu iska samaystay adinku bal qur-aankao dhan iska badaaye hal suuro keliya oo kale qur-aankaas oo kale ah xagga macaanida iyo xagga qaybka waranka iyo xagga cilmi ballaarnaanta kula mid ah bal suurad qur-aanka oo kaleeta ah samaysta u wacda weliba suuraddaas samaynteeda wax alla wixii aad awoodaan oo ilaahay qaybkiisa in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay fain lam tafcaluu haddaydan falin walan tafcaluu maba fali doontaan baa ilaahay leeyaha subxaanahu watacaala haddaydan hadda falin oodan awood u lahayn inaad fashaan oo suurad aad samaysataan qur-aanka suuradihiisa oo kaleeta mana samaysan doontaan weligiini haddaba fiiri waa mucjizo kale arrintaas waxa weeyaan qur-aanku wuxuu leeyahay acdaa fara badan kol hore iyo kol danfara haddii ay suurad asagoo kaleeta samaysan lahaayeen waxay u suurtageli lahayd inay caaridaan oo marka qur-aankiiba ay buriyaan saasaa u suurtageli lahayd markaasaa ilaahay leeyahay haddiidan hadda falin weligiina ma falaysaan oo suurad qur-aanka oo kale lama imaan doontaan ma u malaynaysa ayagoo la imaan kara inay ka gaabsan lahaayeen iska dayn lahayen miyaad u malaynaysa maya marka ilaa maanta wax kasta hadday isku dayeen acdaadu suurad qur-aankaas oo kaleeta aayado qur-aanka aayadihiisa oo kaleeta inay la imaadaan waa awoodi waaye marka waa mucjizo kaleeto oo joogta oo ayadoo zamanka mustaqbalkood dambe aan la gaarin ilahay buu leeyahay weligoodna la imaan maysaan walan tafcalu lanta waxaa la yidhaha ta'diid abadee nafyi abadi a weeyaan oo mustaqbalka walan tafcalu lana imaan kari maysaan oo ma fali doontaan weligiini hadda haddaydan falin weligiina ma falaysaane oo suurad qur-aanka oo kaleetaa la imaan kari maysaane mar haddaydan falin lana imaan doonin fattaqu naarta iska ilaaliya ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala ilaahay rumeeya rasuulka rumeeya raaca
sidaasaad naarta iskaga ilaalin kartaan fattaqu nnaara naarta iska ilaaliya allatii naartaasoo waquuduhaa shidaalkeedu annaasu dad uu yahay iyo walxijaaratu dhagaxyo naartaa waxaa shidaal u ah oo ku huraysaa maadada ay ku shidmaysa ay tahay dad weeyaan dadkaa waa gaalada iyo dhagaxyadana wixii ilaahay qeyrkiisa caabudahayeen weeyaan sida ilaahay yidhi innakum idinku iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sukadiisa xasabu jahannama shidaalkeeda iyo xaabadeeda weeyaan mujaahid wuxuu yidhi waa dhagaxyo kibriid ah oo ur badan oo bakti ka ur badan oo naarta maceeda lagula sii cadaabayo uciddad waa la diyaariyey naartaas lilkaafiriina gaaladaa loo diyaariyo way iska diyaarsan tahay war naarta iska diyaarsanay gaalada loo diyaariyey iidan ku dhicin ha gaaloobina ilaahay leeyahay qur-aanka iyo xaqaa raaca haddaba kolkii saa loo soo sheegay kuwa gaalada ah sida qur-aanka caadadiisaaba waxa weeyaan kolkii dadka xunxun lasoo sheegayo waxay mudan yihiin dadka wanaagsan baa lagu xujiyaa iskarab dhigse u xasisho oo markaa qofku xaqa sidaas ugu garto markaasaa dadkii wanaagsanaana ilaahay noo sheegaya wabashir aladiina kuwii u bishaaray aamanuu rumeeyey wa camilu saalixaati acmaasha suusuuban camal falay iimaanka iyo camalka wanaagsan kuwii isku dareen u bishaareen anna lahum inay leeyihiin jannaatin jannooyin ay leeyihiin tajri ay dureerayso min taxtaha hoosteeda al-anhaaru webiyo jannadaas hoosteeda webiyo kala jaadjaad ah ay durdurhayaan geedaheeda iyo saraheeda iyo waxeeda hoostood ay webiyo noocnooca kala durdurhayaan kullamaa mar alla markii rusuquu la irsaaqo minhaa jannada xaggeeda min samaratin miro looga irsaaqo risqan risqisiin darteed qaaluu waxay leeyihiin haadaa kan alladii weeyaan rusiqnaa nalagu arsuqay min qablahu waxa weeyaan wax isu eg oo isu midab eg markaasaa kolkii malaa'igta iyo kuwa u adeegaya ahlu jannaha ay u keenaan oo waxyaala miraha jannada ka mid ah oy ka qaadaan oo kuwo kale u soo celiyaan waxay moodahayaan kuwii hore markaasay odhanhayaan oo waxa weeyaan kii kolkii hore nalagu arsuqay markaasay odhanhayaan midabkay isaga mid yihiina dhadhanka isaga mid meehe baldedamiyaa laleeyahy wa utuu waa loola yimaadaa bihi kaas mutashaabihan xaal isu egyaha loola yimaadaa walahum way leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda aswaajun haween bay ku leeyihiin mudaharatun la dahiray ahlu jannaha jannadaa dhexdeeda qoysas baa ka dhisan oo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxay jannada dhexdeeda ku leeyihiin haween la dahiray xuurulciin la dahiray oo wax xun oo qurun ahoo dhan laga dahiray nijaaso xisiya macnawiba laga dahiray oo aan lahayn dhiig aan lahayn xayd iyo nifaas aan lahayn meeshaasu ma laha wax wasaq oo dhanba kaadi ma laha saxaro ma laha candhuuf ma laha xaaka ma laha waxaasoo dhan waa ka dahiran yihiin akhlaaq xumana waa ka dahiran yihiin haween la dahiray bay ku leeyihiin haweenkaas waxa weeyaan xuuriciintii iyo kuwii mu'miniinta ahaa oo haweenkii mu'minaadka ahaa oo ahlu jannada noqday qoysasku sidoodiibay usii dhisnaanayaan bal waxaaba la yidhi kuwa haweenka adduunyada ahay oo mu'minaadka jannada markay galaan waa ka sii sarreeyaan oo sha'nigoodu waa ka sii wen yahay kuwa xuuriciinta nafsadooda sida ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala innaa ansha'naahunna inshaa'an abuurid baan abuurna abuurid kale ilaahay abuurahay fajacalnaahunna abkaaran curuban adraab wahum iyagu fiihaa jannadaasay khaaliduuna ku waarhayaan casharkeenu maanta intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullah casharkeenu maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 26 ee suuratulbaqara ka mid ah ilaahay markuu noo soo sheegay subxaanahu wa tacaala adiladii qudradiisii iyo midnimadiisaba tusaalaynaysay naloo soo caddeeyey qur'aankaanu kalaam ilaahay inuu yahay oo wax shaki oo ku jira uuna jirin mucjiz uu yahay loogu taxadiyo loogu bambaxay bal inay isku dayaan inay la yimaadaan suurad walow haba ahaato qur-aanka suuradihiisa tan u gaaban oo kalebe oo markaa naloo soo sheegay inay ka cajizeen halkaana ilaahay wuxuu noogu sheegahayaa shubho ama waxyaalo gaaladu ay ku durahayeen qur'aanka radinteeda waxa weeyaan waxay arkeen qur'aanku waxyaalo badan inuu sheegayo matalan wuxuu sheegahayaa oo marka loo soo qaadanhayaa shinnida diqsiga caaracaarada quranjada waxyaalkaas
oo ka hadlayo xikmad ilaahiye ah masal ahaan loo soo qaadanhayo ayay arkeen. markaasay yahuuddu qosleenu yidhaahdeen ma kalaamkaasa ama hadalkaasa hadal ilaahi u eg. markaasa ilaahay radinhayaayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ina allaha ilaahay laa yastaxyii ka tegi maayo an yadriba inuu yeelahayo qadarahayo masalan masal maa ayu masalin masal kastoos ahaadaba bacuudatan kaniico inuu masal ka yeelahayo iyo famaa fawqaha wixii kasii fooqaho yarida uga sii fooqa. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ilaahay kama tago. haddaba laa yastaxyii xayaha waxaa la yidhaahdaa tagayur ama waxyaalo badanka ku yimaada cabsi uu ka cabsanhayo wax lagu ceebeeyo darteed. marka halkan waxaa loola jeedaa waxa ka laazimahaya qofku wuxuu ka cabsado waa ka tagaa, wuxuu ka xishoodo waa iska dhaafaa. marka waxaas xishoodka ka dhalanhaya ka laazimahaya tarkiga ah kaasaa macnaha loo wadaa kolkii ilaahay xaggiisa uu macnuhu ka hadlahayo. sidaas darteed baa culummadu ku laqbeeya ina allaha ilaahay laa yastaxyii bimacnaa laa yatruku ka tegi maayo an yadriba inuu yeelayo masalan masal uu yeelayo maa masal oo ahaadaba ha yaraado ama ha weynaade bacuudatan kaniico inuu masal ka yeelahayo ilaahay ka tegi maayo iyo famaa fawqahaa wax ka fooqa wax ka weyn. haddaba saas waa lagu laqbeeyaa laakiin waxaa kasii wanaagsan famaa fawqahaada wax yarida uga sii fooq ahoo kasii xaqaarada iyo yarida kaga sii sarreeya kaa ka tegi maayo. maxaa yeelay xikmad ilaahiye ayaa ku sugan. haddaba ilaahay subxaanahu watacaala markii uu caarada masal uga dhigay waxay caabudahayaan oo ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu watacaala waxay caabudahayaan haddii ay makrifo leeyihiin inuu yahay caara gurigeeda oo kaleeto. wax makrifo ay leeyihiin inayna jirin. marka ilaahay quraanjada uu masal ka dhigay, markii ilaahay uu shinnada sheegay, waxyaalkaas markii ilaahay uu sheegay ay caarideen baa ilaahay saa u soo dejiyey. mufasiriinta qaarkoodna waxay yidhahdeen sababnuzuulku waxa weeye munaafiqiinta kolkii masalkooda lasoo sheegay laba masal waa tii naloo soo sheegay. markaas yay gaaladii waxay yidhaahdeen masalkaas maxaa ilaahay uga jooda. ina allaha laa yastaxyii ka tegi maayo an yadriba inuu yeelayo masalan masal maa masal kasta ha ahaado bacuudatan kaniica uu ka yeelay famaa fawqaha. faama aladiina kuwii aamanuu rumeeyeen fayaclamuuna way og yihiin annahu masalkaasu alxaqu xaq inuu yahay min rabbihim xagga rabbigooda ka sugnaaday. masalkaa markii ilaahay qadaro dadkii way ku kala qaybsamahayaan. kuwa mu'miniinta ah waxay ogaanhayaan masalkaasu inuu xaq yahay rabbi xaq ah xaggiisana uu ka yimid. wa ama aladiina kuwii kafaruu kufriyey fayaquuluuna waxay odhanhayaan maadaa araada allahu ilaahay muxuu ka doonayaa bihaada kan masalan min masalina. ilaahay muxuu ka rabaa masalkan muxuu ka rabaa. ilaahay muxuu masalkan qadaridiisa uga joodaa oo waxyaalahaan xaqiirka ee qiimaha aan lahayn ilaahay masal uu usoo qaadanayo muxuu uga joodaa. sidaasay kaafiriintu odhanayaan. wixii looga joodo qaarkii baa halkan lagu caddaynaya. yudillu ilaahay waa lumiyaa bihi masalkaas